kulan wacan daawadayaal meel kasto aad joogtaan waxaad naga daawanaysaan barteena YouTube-ka ee Fagaare Entertainment. waxaan alaaba halkan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka iyo waxyaabaha lagu hadalhayo baraha bulshada saacadii la soo dhaafay. intaan guda galin waxaan ka codsanayaa marka hore daawade inaad subscribe saarto channelkeena kadibna aad furato gambaleelka si muuqaal kasta oo aan halkan soo dhigno aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada. sidoo kale laagrey muuqaalka waayo dhiirigelin ayay inoo noqonaysaa isla markaana waxa uu gaarayaa saaxiibo badan oo sidaada u wanaagsan. waa tahay mowduuceena sida ciwaanka aad ka aragtaan fanaanka liicaato ama jilaaga caanka ah ee liicaato loo yaqaano ayaa shalay lagu jirdilay magaalada Muqdisho. koox dhalinyaro ah oo aan la ogeyn halka ay ka socdaan iyo cid soo dirsatay ayaa fanaanka liicaato waxa ay ku jirdileen isbartiibada Muqdisho ama garoonka Muqdisho Stadium ee shalay ka dhaceysay ciyaar markaasi u dhaxeysay dhalinyaro markaasi liicaato uu kamid yahay. garoonka Muqdisho Stadium waxa shalay lagu ciyaaray ciyaar adag oo xiiso leh oo u dhaxeysay kooxo isugu jirta YouTubers, TikTokers iyo sidoo kale wariyaasha ciyaaraha ama wariyaasha sportiska. waxa la sheegay in ciyaartu marka ay soo dhamaatay koox dhalinyaro oo tiradooda aan la cayimin ama lagu sheegay ama dadka qaar ay ku qiyaaseen inay 30 kor u dhaafayaan ay mar qura garoonka xoog ku galeen kadibna ay si gaar ah u beegsadeen fanaanka ama jilaaga liicaato taasi oo keentay in goobta ay ku jirdilaan isla markaana ay goobta ka cararaan. waxa la sheegay in dhalinyaradaasi ay wateen taleefano si markaasi qofka ay jirdilayaan ama qofkaasi caanka ah ay beegsanayaan ay u duubaan kadibna baraha bulshada ay ugu baahiyaan si ay u ceebeeyaan. waxa la sheegay in ay beegsadeen dhalinyarada YouTuberska balse ay faraha ka qaadeen kuwa wariyaasha ama wariyaasha sportiska. waxay taasi keentay shaki badan. dadka la beegsaday ama la jirdilay waxaa kamid ah liicaato iyo sidoo kale Xasan Toob oo isna ciyaarta dadka ciyaarayay kamid ah. muuqaal baraha bulshada lagu baahiyay saacadii la soo dhaafay ayaa muujinaya dhalinyaro badan oo jirdilaya liicaato iyo sidoo kale Xasan Toob. laakiin Xasan Toob iyo liicaato labadoodaba ayaa la sheegay inay iska caabiyeen ama ay iska celinayeen inkastoo markii dambe la sheegay in ciidamo boolis ah oo goobta ka agdhowaa ay markaasi ku soo bixeen ama ay ku soo carareen garoonka isla markaana rasaas ay fureen ay sababtay in la kala celiyo ama dhalinyaradaasi dib loo celiyo. waxaa la sheegay in dhaawac yar uu soo gaaray liicaato laakiin muuqaalkan marka aad daawato lagama arki karo ama si fiican looma arki karo dagaalka laakiin waxaa la dareemi karaa in la jirdilayo liicaato iyo Xasan Toob. cadeemo rasmi ah looma helin laakiin waxa muuqaal uu soo duubay ku cadeeyay ama wareysi laga qaaday ku cadeeyay Xasan Toob oo sheegay in dhalinyaro ay garoonka fooda ka kiciyeen isla markaana ay jirdileen liicaato isagana uu iska celiyay. markaasi muuqaalka uu ku cadeynayo waa kan ila daawada. halka kaartan u jeedaan taageerayaasha garoonka ay ku soo ordeen waa laga celcelinayo qaaraasa arkaysa muuqaalka yid ku dhuftay midaan yid ku dhufto carare. marka ciyaar horta aad iyo aad u qurux badneed markii laga soo tago muuqaalkaas laakiin se waxa waa dad muuqaalkan astaana duubto korsa u jeedeen waxa ku qoran ciyaarta oo 2-1 astaan ma amsumuga TV ciyaarta duubayna duubeen waxyaabaas qaar markii fiid inay soo gudbinaa laga rabaa mataqaana ay waxyaaba background ka qaldan gudbinayo ay ka jiraan garoonka xulka kubadda cagta Soomaaliyeed oo mataqaana FIFA oo diiwaan gashan oo FIFA mataqaana ay si aad u hesho muuqaalada iyo dhacdooyinka ka dhaca baraha bulshada halkan ayaad kala socon doontaan. hase ahaatee si aad u hesho fadlan subscribe saar kanaalkeena kadibna furo gambaleelka sidoo kale like saar muuqaalka si dhiirigelin ay inoogu noqoto. waad mahadsantiin.